iyadoo guud ahaanba abaaraha gobolkan awdal ka jira ay muddooyinka ugu dambeeyay soo taraysay qayla dhaanta ka imanaysay dhinaca kalena gurmad xoogan loogu jiro sidii dadkaasi loo sabata bixin lahaa ayaa waxa saaka Dhaamiska bilaabay deegaanada ku hareeraysan degmadani Borama ee dhulka baadiyaha ee baraagii biyaha lagu cabi jiray ay ka gureen Humen iyo Somali Development Association oo ah hay'adda bilaantinimada ka shaqeeya oo kaashanaya hay'adda Hctv oo iyadu fulinaysa mashruucan biyo dhaaminta ee loogu talagalay dadka abaaru hayaan in lagu taageero madaxdii ka soo kacaytay wadanka Ingiriiska ee deeqdan biyo dhaamista ku matalaysay labadan hay'adood ee Humen iyo Somali Development Association ayaa ka warbixiyay deeqdani halka ay ka timiday waxaan maanta halkan u nimid inaynu kala qayb qaadano walaalahayaga Borama ama gobolkan awdal ee abaaruhu ay sameeyeen hadda si aynu u gaarsiino biyaha qaybin ilaa 2 milyan oo biyaha oo litir baan ugu talagalay inaan gaarsiin karayno. Whoever donated to this project, our brothers and sisters in the UK gave out whatever they had in their pockets to help you and to help their brothers and sisters in Borama. The situation where animals are dying, our brothers and sisters are dying because they have no water. So for us, we wanted to do whatever we can to provide this aid. Alhamdulillah, in these next few days, we plan to distribute over 2 million liters of water, inshallah. waxaan dareenay markii aan maqalnay xoolihii dhimanayaan dadkiina ay aad u tabaalaysan yihiin iyaan waxaan anagu heli karinay markaas haynay la soo gurmanay 2 milyan oo biyo ayaan qaybin doonaa 5 maalmood ee soo socda inshallah. Dookale iyaguna waxa dhankooda ka mahad celiyay maamulka degmadani Borama wax garad cuqaal iyo xildhibaano oo iyagu sheegay inay si weyn ugu mahadnaqayaan labadani hay'adood ee gargaarka bilaadantinimo ka geystay abaarta waqtigan ka taagan gobolka awdal iyo deegaanada ku hareeraysan magaaladani Borama. halkan maanta u joognaa oo soo dhaweynaynaa Humen Association iyo ururka Somali Association la labada urur ee saaran u soo gurmaday walaalahooda islaamka ah ee reer awdal ee abaartu ay tabaalaysay ee muddada ku soo noqotay. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ummadda islaamka ee taakulaynta hay'adda meelaha biyuhu ka dhiman yihiin u yimid ee inta masaafada inta leeg u soo maray awdal Borama ku soo dhawaada Soomaaliland ku soo dhawaada wax qabadsiinana aad maanta ugu deeqaysaan haddii raadada biyaha iyo wixii kale oo heli kartaa waan idinku mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahadle gurmadkan degdegay ay walaalaheen muslimka ay noo soo fidiyeen aad baan uga mahad celinaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noqon deeqadii ugu horeysay isla markaana ugu dambeysay waxaan cod u gudbinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaataan harraadka iyo abaarta ka jirta gobolka awdal guud ahaan. gargaal ka tirsan hay'adda Hctv iyo barasaabka gobolka awdal maayirka magaaladani Borama ayaa iyaguna sidoo kale si weyn uga mahad celiyay deeqtaasi la mid ah oo raashin iyo biyo dhaamis isugu jirtay oo ay ka fuliyeen deegaanka Cadaad. waa Axmed oo Hctv-ga caalamiga Hctv magaalada Borama.